السلام عليكم. maalin maalmaha kamida ayaa imaam waxa looga yeeray masaajid oo soo hor u aadan laakiin masaajidku waxa masaajid aad u balaaran lagu yaqaan jamaacad aad u badan waana maalin jimcaha khudbad inuu soo diyaariyo loo igmada imaamku wuxuu yiri masaajid hebel weeyaan masaajidku waa wada buuxa dad badan baa ku sugaya istiyaari labiskiisa khudbada ciwaankeeda dhararkeeda wixii dhan isku aadista asagoo ordayo maalintii waqti marka la gaaray masaajidka markuu soo galay waxay dhiibatay hal nin ayaa dhex fadhiyay masaajidka dhamaan ninkii imaamka minbarku soo koray waa istaagay markaas la istaagay wuxuu ku yiniyo waraan masaajidku inuu buuxsamayo oo dad badan imaanayaan oo jamaacada lagu yaqaan caanka imaanayso baan ugu soo talagal waraaq dheer baan wataa khudbad dheer baan soo qortay inuu maadaama kaliya aad joogtid khudbada ma akhriya mise iska dhaafaa maadaama labadeen nahay bal aan kula tashado markaas wuxuu yiri wallahi imaamow sheekhow anu wuxuu yiri sheekhnimada iyo diinta iyo xukunkeeda waxa kama aqaan anu fardooli baan fardaan dhaqdaa waxa gartay soo maahan xerada faraska markaan galo subaxan soo galo oo calafkoodii waxa cun lahayn u soo qaado haddaan arko in fardihii kala bar fakadeen ama kulligood fakadeen oo hal mid kamid soo hor anu midka gaajo ma dhigo yiri calafkiisa waa siiya waa yahay yiri imaamku wuu baxay minbarkii uu fuulay khudbadii uu jeediyay waa daldal xukunka xagga ka rid ayadan soo qaado xadiiskan soo qaado maamadan soo qaado xagga saa yeela kan yeela adu wuxuu ugu soo talagalay dhanba ku afuuf markay dhamaatay khudbadii salaada uga istaageen oo salaada tukadeen soo fariistay xiyoniyo maadaama labadeen ahayn khudbadii ka sheekay bal ka falcil khudbadii sidee kula ahayd markaas shir imaamow sheekhow anigu khudbad iyo masaajid hawli sarta ma aqaan saan ku sheegay waxaan ahay fardooli fardaha markii midka uu soo haro oo calafka siinayo de wixii wada cararay dhan calafkoodii kan wada siiyo intuu asagu lahaa bas aan ka siiyaa marka sheekada waa sheeko iska fani ah luqado badan bay ku soo aroortaa siyaabo kala duwan baa loo wariyaa waxaan la jeedaa baraha bulshada marka ku jirtaan Facebook ha noqdo ama YouTube ka noqdo ama wixii la halmaal dhan ha noqdaan marar badan waxa dhacaysa aniga qudhayda marar qaar waxa istareema macluumaadka rabti inaad gudbisid ama macluumaadka rabti inaad qowdatid ka soo horbaxaya aad bay u fara badan yihiin يعني حق كست أو تالا معلومات كان أونلاين كتالا ما إن الجوودة تالا قال بقول معها وحلا جار ربع أدوي إن كلا دورين كرتيد أنت كورون يا أنت أنا كأنفعين قف بأركز أو حرت هاجين فيديو لبس عشرة الساعة وحليه وحن ربع إن الدعوة سيلو ما نشكر يا وقتك لكن إذا حكاها الليات statistics فربضن دراسات وهر للسميجي أنت أصلا كور أنت للسميجي معلومات هذا فربضن ورادي أنت يرتوك عن فاسك قاط وحاول النبي كل سفر اسمه إنه يهي جامع الكلمة حديث كيسي الصعوبة إنه من هذا الكيس كوبين وحكمة الله ويهي خير الكلام من قل ودل هذا الوحى أو خير بدن أنت ير العماد حنبرسن هذا الصومالي إن هنا لقطنا طبعا كل قرية والقطعة تدار وحان دون يا لبشد ويان يعني إي أو بدنا كشرت قرآن هان وادر نهاي هذا الهان وادر نهاي مركب نحسوي شيء إن آدم وهذا لنا أورليا ولا فتجينا يقصوا لعبنا يسوع مركب وحوية شارله مركب كشرت عالم كان معلومات كأد قودنا يصير أنت كان فاعل كقاضي dad badan baxay soo weydiinay aniga marka qaar waxay leeyihiin waxaad ka hadlaysid naga soo koob ama saasiyan walaal waa laga yaabaa in adin yar ka anfacayso inta yar ka qaado qof kale in kale ka qaadanaya ninba inta mataqana ku habboon buu qaadanaya mawduucan bal asxaabtaada ma ku dhacdaa adiga maxay kula taa fikrahantaada bal aragtidaada ila wadaag jaal adoo maasan salaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh